waxaan u gudbaynaa qodob kaloo ah bisha Ramadaan maxay kaga duwan tahay horta bilaha kale bilaha islaamku waa 12 bilood sidoo rabbi quraanka ku tilmaamay suuratu tawba inna ciddata shuhuri 'inda Allah 12 shahran 12 ka bilood maxay kaga duwan tahay bisha Ramadaan insha Allah waxaynu sheegi doonaa haduu rabbi idmo ilaa iyo 7 qodob mise 8 qodob oo ay kaga duwan tahay bisha Ramadaan bilaha kale 8 qodobka koobaad ee bisha Ramadaan ay kaga duwan tahay bilaha kale waxa weeye kow bisha Ramadaan in la soomo waa rukniga afraad ee kamida arkaanta islaamka in bisha Ramadaan la soomo waa rukniga afraad ee kamida arkaanta islaamka waa qodobka koobaad ee kaga duwan tahay bilaha kale waa kii nabigu lahaa buniya al-islaamu ala 5 shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqami as-salati wa ita'i az-zakati wa sawmi ramadana wa hajj al-bayt marka wa sawmi ramadana sawmi ramadaan waa soomka ramadaanta la soomo waa rukniga afraad ee kamida arkaanta islaamka sida daraadeed ba culimada muslimiintu isku waafaqan muslimiinta oo dhani in la soomay bisha Ramadaan inay tahay fardun aynun min furudillah qodobka labaad ee bisha Ramadaan ay kaga duwan tahay bilaha kale waxa weeye ijaabu in la waajibiyay in ay soonto ummadda nabi maxamed oo dhan bishani waana wujuub ayni ah oo qof walba goonidiisa looga rabo aayadan markii dhaway taakhriyay baa u daliila faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu qodobka saddexaad ee ay kaga duwan tahay bisha Ramadaan bilaha kale bisha Ramadaan waa bishii quraanka la soo dajiyay inzaalul qur'aani fihi li ikhraj an-nas min adh-dhulumati ila an-nur wa hidayatihim ila sabil al-haqq wa tariq al-irshad wa ib'adihim an subul al-qayy wa ad-dalal wa tafsirihim bi umuri dinihim wa dunyahum wa bishii la soo dajiyay quraankaasoo dadka lagaga saarayo mugdiga nuurkana loo saarayo quraankaasoo ay ku cadahay dariiqay ku hanuuni lahaayeen iyo dariiqii xaqooda looga fogay lahaa wadooyinka baadida iyo dulmiga iyo tusida la tusaya arrimaha diintooda iyo adduunyadoodaba sida daraadeed buu rabbi leeyahay shahru ramadaan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan bisha Ramadaan waa bishii la soo dajiyay quraanka kariimka isagoo ah quraanka kariimka hanuun dadka u ah aayada cad wuxuuna u cadeynaya hanuunka waana kala saarida xaq iyo baadilka inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri khayrun min alf shahr marka bisha Ramadaan waa bishii quraanka la soo dajiyay bisha Ramadaan qodobka afraad ee ay kaga duwan tahay bilaha kale waxa weeye annahu tuftahu fihi abwaabul janna لكثرة الأعمال الصالحة المشروعة الموجبة لدخول الجنة وأنه تغلق فيه أبواب النار لقلة المعاصي والذنوب الموجبة لدخول النار وأنه فيه تغلق وتهثق الشياطين بشهر رمضان وحال فرا أبواب البابة الجنة نمبا لفرا تلو البابة الجنة وحال فرا سي أعماش الصالحة الله بديوه أعماشا صالحة كوا تشبينيسا إن إلهي جنديسا قشو وحال حدا البابة النار تأردن سي أي أيراتو معصيدة يدنوتا السبب طوى إن نار تلقلو وحال حدا السلسلة لدعا على السلسلة ديا شيادين تكوا دا واوين بالا السلسلة ديا وكي النبي قينو صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة بشهر رمضان مركي تماده البابة الجنة الله فراه هل لقى فائدة الباب الجنة وفرينهين هل لبصد القرآن كآخر سكيسة هل لبصد الصلاة هل لبصد الدعاء هل لبصد الصدقة ما دون إنسان جنة إلهي سبحانه وتعالى جوابت وها وفرنتهاي جنة سداد الباب إلى هاي سداد الباب الجنة بوال فراه كيف فائدة سوى شانسه هذو الله عافيمات كوسو قارسيي وفرصة ذهب كيف فائدة سو الله بيئة طمان كبلاد السنة كا بشكلية البابة الجنة الله بلقا وبشهر رمضان كفائدة سهدبا كفائدة سو نبي وحور وقل لقت أبواب النار وحال حدا البابة النار تا مدون يسأين له النار تكاحر ها اسك إلى معصية وحريين البابة النار تا الله بيطمن كبلاد السنة كا وبشكلية البابة النار تا لحرو
nebigu wuxuu ku daray wasufidat shayaadiinu shayaadiintana waa la silsiladeeyaa shayaadiinta ina dhibtay naftii inoo keentay salaadii inoo diiday sadaqadii inoo diiday xajkii inoo diiday xumaanta macsida beenta sinada khamriga inagu dhiirigelinaysa ee wado walba inoo fadhida ilaahay baa inaga xidhay subxaanahu wa tacaala bisha rabadaan kowdeeda maalintay saa u dhalataa shayaadiinta la wada xidhaa waxaana la soo daayaa maalinta bisha rabadaan ay baxdo ee habeenka ciidda la soo daayaa 12 bilood ee sanadka waa bisha kaliya shayaadiinta la xidho war shaydaanka la xidho ma garanaysaan waa shaydaankii ilaahay hortiisa ka dhaartay ee yidhi rabbi yawsaad ii lumisay la'aatiyannahum min bayni aydihim وعن أيمانهم وعن شمائلهم إلهي وصاد إيقالوا مسيبوا يري مدك تودان كاقا إيمانيا أو بدحدان كاقا إيمانيا أو هربان كاقا إيمانيا أو قضالبان كاقا إيمانيا إن الدومادا يك إنتو دبادانو كوكو شكريا سنهيلي ميسي بلان بو إلهي هرتي سكاقادا إنو الدومادا اللومين أيوه نين كان والله نغا حرايا هاد بها لغا فائديستو ألا عبادتو معانا بشهر رمضان الله قرآنكم معانا بشهر رمضان الله صدقته معانا بشهر رمضان الله أذكارته معانا بشهر رمضان الله الصلاة معانا بشهر رمضان وفرصة ذهبية هل لقى فايديستو وحديث كان بخاري مسلم بصوص عليه حديث كهرباء قضب كشنات بشهر رمضان يكقد وانت بلها كلوحة وي سبحان الله هبين كستو أو بشهر رمضان كمده إلهي ضد نار تكحرية وهبين كسته oo bisha rabadaan kamida ilaahay dad bunaarta ka xoreeya walaal ma jeceshahay inuu ilaahay ka dhigo uu kaaga mid dhigo dadka habeen walba naarta laga xoreynayo ma jeceshahay ha anigu waan jecelahay qof kasto muslimana waa jecel yahay inaad adigu jeceshahayna waan u maleynaya waan wada jecelahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala haynaga mid dhigo dadka habeen walba naarta laga xoreynayo nabigeena sharafta badan muxuu yiri inna lillahi 'inda kulli fidrin عتقاء وذلك في كل ليلة نبينا وحوري صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى مركزته الله آفريه الضوما أيو نار تكحرية وآفرده الله آفرده وعناه هبين كست النبي محمد وحوري وذلك في كل ليلة مركزته الله آفريه وهبين كسته الله آفريه إلهي الضوما نار تكحرية بري ولا الإلهي إلهي ويدي سينو عدوما ذاك وقدره ما أيان درك وين باكرته ما قول درك وين باكره ما خسارك وين باكره إن أنت بشر رمضان كودا لطه أي كودا ما طه أديكون كمن نقندتك إلهي نار تكحرية إلهي سبحانه وتعالى تتكا قول درستين نجمد دقه الله هي نجمد دقه أو هي نقدره تتكا هبين والب إلهي نار تكحرية وحيابه كجد وأنت بشر رمضان بلها كلي كم التحي وحكم ذا ولا القضب كل حد بشهر رمضان أي كجد وأنت بلها كله وحكم ذا أن بشهر رمضان وحياه كجد وأنت بلها رمضان إنه إلهي سبحانه وتعالى الدم بيجي سرافة يا بشهر رمضان قف كستو بشهر رمضان صومي يسقو إلهي الرميسن دم بيجي سهرة نبلا دافيا هذا هو فرصة قف كستو بشهر رمضان صومي يسقو إلهي الرميسن إلهنا أشري أبا الجود كدونية الله سبحانه وتعالى الدم بيجي صار رب رافية نبينا محوري من صام رمضان إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه حديث كبخاري مسلم بصوصاره قفك بشهر رمضان صوم نبي قولي هاي يسوى إلهي الرميسان أشر ندل بي الصوم كان أشر كدونية إلهي الدم بيجي سوريا الدم بيجي سيدنا بابو دافع قضب كتضبات بشهر رمضان أي بلاه كلك قد وأنت وحوي وحال السنية أو السنة إلا تكذا صلاة التراويح ده يدو النبي قال له ضيّنا صلى الله عليه وسلم واتش معها صلاة التراويح ده والسنة ولا السنية إن صلاة التراويح ده لتكذا يدو النبي قال له قد ضيّنا يو نبي محمد صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه قفك بشهر رمضان استاجه أو صلاة إسكتها التراويح ده يسقى إلهي الرميسان حقنا إلهي أشر كدل بيا قفك إلهي بس سبحانه وتعالى دافع تنبغي سهر إلهي بعد دافوي وأنا حديث بخاري مسلم صار قضب كالسدادات أينو تلمام إنه
bisha Ramadaan ay kaga duwan tahay bilaha kale ma garanaysaa subhanallah waa habeenkii khayrka badnaa waa habeenkii ka qiimaha badnaa 83 sano waa habeenkii rabbi suurada kaliya u gooni yeelay inna anzalnahu fi laylatil qadri وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر من 1000 شهر وهبينك ليلة القدر وهبينك خير بدن كن كبلود من سوء الدقماء 86 سنة كبدا نبي وحوري صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم نبي وحوري بشي رمضان واتن ويسو حاضر تيبو نبي لي يسقو صحابة الله هدليا وحا كجر هبينك خير بدن كمبلوت قفكي لغا حرم هبينك ليلة القدر خير او دنبا لغا حرم سبحان الله نبي قبلو في سوحو ليه قفكي هبينك لغا حرمه خير او دنبا لغا حرمي نبي وحوري لغا ما حرم هبينك يبش هبينك فلغا بدن إلا قف خير لغا حرم موياني نبي مركل واكيلا من قام ليلة القدر قفك السلاد اسكتاغا هبينك ليلة القدر لدهو إيمانا واحتساما إساغو إلهنا الرميسان عشرنا دلبايا غفر له ما تقدم من ذنبه إلهي سبحانه وتعالى وحو دافا ذنبه سهر دنبا لو دافا marka habeenka fadliga qiimaha badan waa ku jira way inta waxaynu kaga baxaynaa waxyaabaha kaga duwan tahay bisha Ramadaan bilaha kale bal waxaan in yar tilmaami doonaa ishaari doonaa waxyaabo waaweyn oo bisha Ramadaan dhacay waqtigii nabiga salawaatu rabbi wa salaam alayhi waqtigii nabiga waxyaabihi waaweynaa dhacay waxa kamid ah dagaalkii badar qaswatul badar suurada dhan ay ka soo degtay qaswatul furqaan rabbi ku tilmaamay qaswatul badar baa dhacday bil Ramadaan bay dhacday ilaahay baa xaq iyo baadilka ku kala saaray waa bishii islaamku guuleystay waa bishii shirkiga gaalmadu ay baaba'een bil Ramadaan bay dhacday sanadkii labaad hijriyada waxyaabihi nabiga waxyaabihi waaweynaa dhacay waxa kamid ah fathul makkah magaalada barakaysan ee makkah mukarrama waxaad garanaysaa nabiga in maalin dhan laga cayriyay waxay gacanta nabiga soo gashay oo nabigu uu qabsaday bil Ramadaan bay ahayd waxyaabihi dhacay bay kamid ahay bisha Ramadaan muslimiintu ay guuleysteen sanadkii 8 hijriyada waqtiyadii nabi maxamed kadibna dagaalo waaweyn baa dhacay oo muslimiintu ay ku guuleysteen bil Ramadaan bayna wada dhacday marka bisha Ramadaan waa bil barakaysan waa bil fadli badan waa bil ay muslimiintu iska leeyihiin waxaynu hadda dhamaynay 8 qodob bisha Ramadaan ay kaga duwan tahay bilaha kale waxaan wax yar ka tilmaamaynaa qayb kamid ah fadaa'ish iyo fadliga ay leedahay bisha Ramadaan inkastoo qayb kamid ah aynu soo marnay waxa kamid ah fadaa'ish bisha Ramadaan leedahay bisha Ramadaan amal kasto qofka muslimka uu sameeyo 10 jeer baa loo laaba ilaa 700 jeer laga gaarayo laakiin bisha Ramadaan way ka duwan tahay bisha Ramadaan amal kasto aad samayso ilaahay baa iska lehba soomka khaasatan bisha Ramadaan soomka sooman tahay ilaahay baa iska leh waxay Bukhari iyo Muslim wariyay nabigu inuu yiri sallallahu alayhi wasallam min hadith Abu Hurayra kullu amali ibn adam yudaaf amal kasto nabi ibn adam ay sameeyaan waa la loo laalaaba al hasanatu 10 amthalaha hasanat kasto 10 jeer baa loo laaba ila 700 ضعف ila 700 jeer laga gaarayo markuu nabigu inta yiri baa nabigu wuxuu yiri qaal Allah azza wa jalla alla wuxuu leeyahay illa soomku kuma jiro soomku waa ka duwan yahay fa innahu li wa ana ajzi bihi soomka aniga iska leh anaana ka abaal marinaya soomka ilaahay baa iska leh ilaahay baana ka abaal marinaya nabigu wuxuu leeyahay yad'u shahwatuhu wa ta'amahu min ajli dareenkiisi uu reerkiisa la qaybsan lahaa iyo cuntadiisi iyo cabitaankaygi aniga daraaday buu uga tagay waa sidaas cuntada waxaad u afxiran tahay ee gaajadu ku dilayso ee haraadku ku dilayso waa ilaahay dartii subhanahu wa ta'ala alla muxuu leeyahay lisaa'imi farxataani qofka soomani laba farxadood buu leeyahay laba jeer buu farxayaa farxatan inda fidrihi wa farxatan inda liqaa'i rabbih markuu aafurayo markaad aafuraysi waa farxad inuu ilaahay maalinta soomkeedii ku dhameystiray
marka labaadna waa markaad ilaahay la kulanto maalintaasna waa farxad weyn nabi allah wuxuu ku daray wala khulufu fihi adyab inda allah min riih almiski qofka sooman urta afkiisa ka soo baxaysa baa ka udgoon kana qiimo badan cadarka miskiga la dhaho subhanallah wa urta qofka sooman afkiisa ka soo baxayso baa ka udgoon kana qiimo badan kana qaaya badan cadarka miskiga la dhaho waa fadli weyn oo xadiidkaas uu tilmaamay imisa fadli baa xadiidka ku jira waxyaabo fara badan oo fadliya ayaa xadiidka ku jira waxa kamida fadaaisha ay leedahay bisha rabadaan qofka muuminka maalinta qiyaame way u shafeeco qaadaysaa maalinta qiyaame bisha rabadaan wayba ku doodaysaa oo way ku shafeeco qaadaysaa soomku nabigeenu muxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam xadiidka ay warinayaan أحمد وصاصاري نبي حلي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صوم كان صوم انتهي إيا قرآن كبا لبضب ويشفع قاضيان الدون كمان القيامة يقول الصيام صوم كوحورنا يا أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فيشفعني فيه إله يوم cuntadiisii iyo cabitaankiisii baan maalintii u diiday ilaahay shafeecada iga aqbal buu oranaya soomka hadlaya markaas ilaahay ka shafeeca aqbalaya wal quraan yaqul quraankuna wuxuu oranayaa mana'tuhu an-nawma bil-layl fayashfa'ni fihi wuxuu oranayaa ilaahay anna hurdadii baan u diiday habeenkii oo way igu tukan jiray u shafeeca qaad markaas Allah ka aqbalaya markaas u shafeeca qaadayaan waa fadliga ay leedahay bisha Ramadaan bisha Ramadaan waxay leedahay dacwo mustajaaba ah baryadu waa mustajaabo bisha Ramadaan ilaahay in la baryo wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an wa inna li kulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watan mustajabu nabigu leeyahay marka ilaahay in la baryo bisha Ramadaan fadaa'isheeday kamid tahay dacwada baryadan ilaahay subhanahu wa ta'ala waa aqbala fadaa'isha waxa kamid ah bisha Ramadaan walaalayaal bisha Ramadaan qofka sooma إلهي سبحانه وتعالى نارته وكفوجيا شنادن إلهي وأدويا فضايش بشر رمضان بكمتها سيدا درادد بالنبي قالوا لي هاي ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعده الله بذلك اليوم وجهه من النار 70 خريقا الدون متشر السومية مالن إلهي درتي وسومية إلا إلهي سبحانه شد إلهي كسومية إلا إلهي سبحانه وتعالى وحكفوجيا وتشجيسا تضباطا خريق أي إلهي كفوجيا سبحان الله وحكم ذا والله عليه فضائش بشهر رمضان إنه إلهي سبحانه وتعالى دتك الصومن أجونية للباب دون تشنده كم ذا تشنده سداد الباب بلا ذهي سداد الباب تشنده الباب كم ذا وحى إسكال دتك الصومن أكل يربكوا أبا المرنيا بلو في رسالة النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد نبي محمد صلى الله عليه وسلم جنة وحكويا للباب لده الريان الباب كعكنا شهوي وحكجل يدك السومن وكل يمان تقيامه markay galaan waa la xidhayaa albaabka cid kale oo ka gali kartana ma jirto maalinta qiyaama waxa la oranayaa meeya dadkii soomana dadka soomanoo kaliya galaya cid kale oo gali kartana ma jirto marka dadka soomani albaabkaas fadliga badan iyo qiimaha badan bay leeyihiin waxa kamid ah walaaleel fadaaisha bisha Ramadaan ahadiiteen markii dhaweeytay soo sheeganay ee ahayd in bisha Ramadaan la soo dajiyo quraanka فضل بشر رمضان بكميته وحكم بشر رمضان فضل جيده إن الباب هذا الشناد الله فرين صار شاقني الباب هذا نار تلحرو شيادين تلحرو وحكم هذا فضايش بشر رمضان ولا عليال إنها بين قصة بشر رمضان كم ده إلى هاي وضد نار تكحر يوين صامر نكواس